halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa qaybo ka mid ah hablaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan hablaha qurba joogta oo halkan maanta aan ugu sameynay munaasabad hadima sharafeed ah hablaha waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo iyo dadkiina iyo isbedelkii oo ka dhacay inta ka bacdi habluhu runtii waxa weeyaan hablihii ama taageerayaashii ama aynu raahno جيب علستي حسبي وداني لكن لقى بلعبة ما أنت إيو أنتي سبدل كل عيبة وحييين ونقول دونا هبلها قرن كجمهورية الصومال قريب كم دويان دولاي كدو وحنا كشقين دونان سيدا يجوا بيكور بحين دونان أرمي دور شدا حنفتي دي أرمها صدق إن لترو أو ليس وذا على الحادو أنت كبعدي وحنا كان دوني إن هم بليق قارن وقدره madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa cusub gaar ahaan waxaan ku hambalyeeynaa qoondada haweenka runtii wasiirada shilis waliba si gaar ah waxaan u hambalyeeynaa wasiir Kaltuun iyo wasiir Samsam Maxamed Saalax yaaniile oo runtii dad badan ay wax iska weydiiyeen oo aan doonayna halkan yara dul istaago dad badan aan garanayn laakiin taariikhdu waa dhigaal oo cid walba way ogtahay qof kastaaba in taariikhda iyo sooyaalka qaranku soo maray reer Saalax yaani la hadaan yara dul istaago oo dad badan aan garanayn ama beesha gurgure waa beel aad u ballaaran waxay degaankoodu ka kooban yahay laga soo bilaabo buuraha Calmadow waqooyiga Ceerigaabo tuulada la yiraahdo Sheekh Gurgura inaad wada taqaanaan marmaynaya Sheekh ilaa iyo inta u dhaxaysa gabiilay iyo allay baday oo ay ku leeyihiin ugu yaraan 10 tuulo ay ka mid tahay Taysa ay ka mid tahay Ijaara ay ka mid tahay Qadowga uu ka mid yahay Qoondhaale uu ka mid yahay Mitirka uu ka mid yahay Darbiga intaas oo dhan bay degaan dhanka kale marka laga yimaado reerkaas oo ka mid ah beelaha direed ama madaxweyne dir waxay laba degmo waaweyn ku leeyihiin gobolka Shiniile sidoo kale waxay 19 degmo ku leeyihiin magaalada Dirdhabe ama gobolka ismaamulka Soomaalida Dirdhabe waxa uga soo baxa 43 xildhibaan marka horta waa beesha inta leeg hadaynu dul istaagno reer yaaniile ama qoyska ay ka soo jeedo wasiir Samsam waxa weeyaan waxay ka soo jeedaa shiikhii weynaa ee furay dugsiga sheekh ay ka soo aflixeen madaxweynayaasheenii wasiilaaye ka soo baxay وعبد الرحمن عرة كسب بحي أو كسب بحي عقال إلهي ونحرسته لبدا مدحوين بقى خير قويس كاسي كسوت شدا لكن كانوا حيانين سلا قويس كاسي كسوت شدا معلم كي مدحوين عبد الرحمن عرة معلم قاسم وها شيخي اسلم أردن وفدوين شري وشيخه وينه جبادي بحرية اسلم سوماليلاند شيء شيخي gaarka haabuha marka uu qoyskaas hadaynu dhan kale aynu aan bal qoyskayga quality-giisa aan dul istaago waxa dhaleeyo badan inta nin ay dhaleen waliba hogaamiyada siyaasadda waxa kamid ah suldaanka guud Ciise Muuse Axmed Sheekh waxay dhaleen ilmo jirde Cabdiqaadir Shidde caruurtiisa waxay dhaleen ilmo caruurta Ismaaciil Yare waa qoyskaas kale reer yaaniile waxay dhaleen wasiirkeeni hore waxbarashada Ilaahay naxariistay ee Gadweyne waxa ka soo jeeda oo dhaleen Jamaal Diiriye oo garanaysan xildhibaanka Jamaal Diiriye iyo waxa kale oo ka soo jeeda Mahad Cabdalla Cawd gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawd marka reerkaasi ku sii dheeraan maayo wali waxaan aaminsanaa dad badan hadalkan ama reerka taariikhdiisa waxaan ugu dul istaagay dad badan waxay isweydiiyeen beesha gurgure iyo matalaadooda wasiirada madaxweynaha waxaan ugu hambalyeeynaa matalaada uu beesha siiyay oo waliba u qalmaan wasiir buuxa oo waliba ay qaataan waxaan ugu hambalyeeynaa Ayuub iyo Toljecle Gabooye Akishe sidoo kale waxaan isleeyahay kama marna garashadaas madaxweynaha waxaan doonayaa kale inaan idhaahdo madaxweyne waxaad gudday beesha gurgure matalaadooda aad siisay abaalkii uu Saalax yaaniile ku lahaa Soomaaliland iyo SNM iyo shacabkeena waxaad gudday abaalkii uu nagu lahaa macallin Qaasim waxaan doonayaa in aan filayaa inay ku soo jiraan khadka ama oo xukuumadda qayb inta badan ay hadhay ay ku soo bixi doonaan beelo kale oo jecelahay
inay matalaad Somaliland ku yeeshaan sida beesha Cabbaas ee Surre ee diga Ceerigaabo Gahaylo sida oo kale nimanka la yiraahdo Hawiye oo waliba ah nimanka la fiqshin intuba waa muwaadiniin deegaanka kule laakiin dhowr iyo 30 sanadood ay Somaliland jirtay ay ku qatanaayeen ama ay ka maqnaayeen qoondooyinka ama saami qaybsiga Somaliland aad iyo aad baan hablaha aan mar labaad soo dhaweynaya aan dalkooda hooyo ku soo dhaweynaya waxaan leeyahay qolqol joogta markay martidu inoo timaado waa in la dhiirigeliyo si ay dalka ugu soo noqdaan iyaga dhalinyarta hablaha haweenka iyo waliba caruurteena qurbaha ku dhaqan waxay u tahay dhiirigelin inaynu soo dhaweyno in hadhimo sharafeedyo sanoo kala ay u joogtayno inaynu soo dalxiisano oo in banaanka u saarno hadda waxaan u baxaynaa aan u kicitimaynaa way codeeyano ma galbeed baynu qabanaa waan mise bariga waxay codka u taageen inay galbeed iyo gobolkii cagaarna marka goordhow baan tegaynaa isna oo aan soo dalxiisin doonaa Ilaahay ka dhigo aad iyo aad bad mahadsantiin